haweenkan oo ku nool magaalada jigjiga xarunta deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay ka shaqeeyaan kaniisad ku taala jigjiga waxayna sheegeen inay cadaadis kala kulmaan dadka kaniisadda si gaarana mararka ay taagan tahay gudashada waajibaadka saaran ee basaaray sida salaada iyo caabudida iyo cabsida Ilaahay waxayna sheegeen inay haweenkani kaniisadda inay ka shaqeeyaan ku kaliftay iyo duruuf maadaama ay shaqo kala haynin waxayna ummadda Soomaaliyeed ka codsadeen inay soo caawiyaan meel ay joogaanba magacaygu waa Ashaadan Ali waxaan ka shaqeeyaa kaniisadda dhexdeeda dambay ku kaliftay wax kale oo shaqeystana waan garan waayay dan yarna waan ahaa caruurta aabahoodna ima noolo saadirteed baan halka u shaqeeyaa meesha meel de muslimiintu ka shaqeysanaysa ma aha laakiin dan baan noo geysay iyo wax kale de aan ka shaqeysano raasa maalintaan hayno de meelaha fadhiisano iyaan weynay haddana waxa kolkaan halka ka qaadno suuqa ma ku dhaafna iyalka un bay ay masaariiftooda tahay laakiin dadka iyaga walaalaha dhammaan Soomaalida waxaan ka codsanaynaa meesha dhexdeeda haday naga saaraanay maanta waxaan ku shaqeysanaa hadayna siiyaan shaqo kale de meel kale ay de halkan ahayna de ka shaqeysana yidaan ka shaqeysano de maanta aad baan ugu mandaqina طيران بنوجس ولا شقلان تنوجس عملان wax kale oo ka shaqeynaa markaan garan weynay ayaan ka shaqeynaa ma garanaysaa shaqalaanta noogaysa duruufaha noogay xaraga doomayna geeynin kuma aanan xaragoonin nin walba meesha ku ciriiri ku yahay inuu ka shaqeeyo diinta islaamka ay ogoleen maadaama ay ogoleen anaguna qasab nagu maaha walaalaha islaamka waxaan ka codsanaynaa inay shaqada naga bedelaan haday shaqo khayr qabta ilaahay inuu naga siiyo tan baa noogaysay meesha kaniisadda kamanaan shaqeyneen haday aan wax dhaantahayno duruufaha ayaa noogeeyay maadaama ciyaal yar u shaqeyno aan ku biilinayno ciyaal yar kibis baa noogeysay dan baa noogeysay halkan baan xaafadda ma galaa oo la joogaa oo wax kula qabaa oo la cunaa caruurtaydina meelaha bay iska balabayaan iska joogaan barakacna waanay dad barakac iska rafaadsan waanahay rafaadka oo maaragtay aan wax alla waxaan ku qabno iyo wax gargaar oo ku qabnaana una jirin mataqaanay dawladda maanta waxaan ka cabsanaynaa ka codsaynaa maadaama oo maaragtay aan rafaad ka qabno kaniisaddan ku jirin aan laga soo saaray oo shaqadii taamoyta kale oo aan garanayna jirin waxaan ka codsaynaa dawladda maanta in maaragtay ay noo gargaarto oo ama shaqo aan ka shaqeysano ay nasiiso ama waxaan meesha aan kaga maarano aan ka helo iyaan dawladda ka codsanaynaa weeyaan dawladdeena Soomaali meel kasta oo maartay way joogaan walaalaha iyo dhulka buuxo oo Soomaali oo badan baa jira waxaan ka codsanaynaa dadka iyaga walaalaha in ay meesha naga gargaaraan salaadayada iyo soonka iyaga haddii aan soomanahay ma taqaanaa anagu deelaan dad muslimaan nahay maadaama soomanahay oo maanta soonka oleyno nooma ogolaan martay waqti aan ka baxno meesha hawshooda oo dhamayno un mooyaane way soomay dadka waqtiga baxayaan cidna ma rahayso ilaa inta waqtiga dhamaan hadeen waxay sanadka ma ku fareenaa hadii aan weynana de waaba khalaas oo waqtiga ma naga tagiba ugu dambeyntiina haweenkan ayaa la sheegayaa inay shaqo ka heleen dawladda hoose ee magaalada Jigjiga xafiiskiisana ku qaabilay maareeyaha magaalada Jigjiga ee bilicda iyo nadaafadda injineer Radwan arrinkaas oo shacabka Soomaaliyeed aad u bogaadiyeen Abdul Ibrahim telefishinka Horyal Jigjiga